مصطفى محمد عمر مدحوينها DDS ayaa si xaraabo leh u cabiray natiijada doorashadii xisbiga barwaaqo iyo dib u dhiskii xubnaha golaha dhexe ee xisbiga saacado kaasiya ah kabo ila murana iyo taleefano danka hadal ah oo iska daba maray una kala bedelmay dad isugu yimi goob aroos ah oo lagu saamaleelay ayuu madaxweyne Mustafa ku masaalay natiijada ka soo baxday dib u doorashada xubnaha golaha dhexe ee xisbiga PP ku metelay Soomaalida tabintan ayaan kugula wadaagayaa guud ahaan natiijooyinkii iyo fafaalada ahaa ee laga filayay shirweynaha xisbiga istabaamaradii dhacay sawaxanada ku gadaaman iyo waxa uu ka yiri madaxweyne Mustafa anigu Axmed Awga halkanina waa JTN ee soo dhawaada jaalayaal guud ahaan natiijada ugu weyn ee laga filan karay shirweynaha xisbiga barwaaqo ma ahayn wax ka badan dib u dhiska hogaaminta xisbiga iyo qaadashada jihooyinka cusub ee xisbigu la hor imaanaya shacabka doorashada soo aadan arrinta kaliya indhaha lagu hayay waxay ahayd siyaabaha uu xisbigu u xalliyo qodobada dib u doorashada xubnaha golaha dhexe buuxinta boosaska ay xubno ka baxeen iyo ugu badnaan isdabamarin ama u kala boosbedel lagu sameeyo xubno iyo ciwaano taasi ayaana isla sidii uu dhacday gaar ahaanna marka la eego matalaada Soomaalidu ku leedahay golaha dhexe iyo fulinta xisbiga waxaase dhacay waa isbedelo ku yimi filashooyinkii ugu xooganaa qaarkood iyo soo beerista xubno aan laga filanaynin in ay soo galayaan golahan Allah u naxariistay booska marxuumad xildhibaan Juweeriya Subcis ayaa ahaa booska ugu weyn ee lagu taamayay buuxintiisa marka la eego xubnaha matalaada Soomaalida taas oo loo badinayay inuu booskaas buuxiyo xubin ay isku hayb yihiin marxuumada taasi sema ayna dhicin oo booskii waa la buuxiyay laakiin ma dhaboobin filashadii ahayd inuu booskaas galo xubin la hayb marxuumada sidoo kale xubna ay ku jiraan Dr. Xuseen Xaashi Qaasim Marwo Ayaan Cabdi Waamo iyo Marwo Hibe Axmed Cumar ayaa ku soo biiray matalaada Soomaalida ee golaha dhexe Dr. Cabdiwaasi Cabdilaahi Bade oo marka hore qorshuhu ahaa in laga reebo xulashada golaha dhexe ayaa isaguna ku amar ku taagleeyay awood heer federaal ahna ku xajistay booskiisa dhammaan qodobadan aynu soo xusnay ayaa dhaliyay sawaxana iyo buuq dhanka baraha bulshada ah oo iskugu jira alalaaska gobollo matalaadoodu xoogan tahay saluuga gobollo isku arkay inaan lagu tixgelin xulashadan iyo sawaxana kale Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo goordhow qormo ku bilaabmaysa hambaliyada xubnaha golaha dhexe ee PP ku metelaya Soomaalida ku qoray bartiisa Facebook ayaa qayb ka mid ah qoraalkiisa waxa uu ku yiri madaxweynuhu Addis Ababa marka wax lagu qaybsanayo waxaan nahay Soomaali saamigii Soomaaliyeed waan helnay aroos hadaa tagto oo waliba lagu saamaleelo dadka in ay kabo iska daba maraan ama saacado iyo taleefano si qaldan jeebasha loo kala qaato way dhacdaa lamana qariibsan karo waagu kulku bariyo waa la isu soo celin kab iyo saacad mid dooni ha noqotee waxa markaa haboon in guulaha shacab ahaan aan gaadhnay ee ay ugu horeyso xaqiijinta ismaamul dhab ah iyo matalaad mug leh ee heer qaran ah aan ku faraxno siina xoojino nidaamka federaaliga ah oo hadda ay bilaabatay in si dhab ah loo dhaqan geliyo sawaxanadii ay ku wareereen reer DDS kuwa boos difaacasho ku jiray iyo kuwa xanaaqsanaaba oo u arkayay in aabahood la dilay waxa uu madaxweyne Mustafa wixiiba ka soo qaaday saacado kaasiya ah kabo ila muran ah iyo taleefano neeqla ah oo si khaldan goob aroos ah oo lagu saamaleelay iskaga dhexgalay dadkii una kala bedelmay inta aan ogahay xaaladdan madaxweyne Mustafa tusaalaha u soo qaatay iyo nooca aroos ee uu sheegayba waxay ka dhacaan gobolada Jarar iyo Faafan adigu ma aragtay xaaladdan madaxweynuhu tusaalaha u soo qaatay sideese ayaad u aragtaa tusaalaha madaxweynaha aragtidaada faalada inoogu reeb mahadsanid